assalaamu calaykum. Maanta barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay sheekada ruux raadin jiray guusha oo garaacay albaabo badan. Dad fara badan oo ka mida kuwa guusha gaadhay la hadlay, in badan wax u fiirsaday, in badan fikiray, in badan wax tijaabiyey si uu guusha u gaadho. Talow ma gaadhay guushiisii? Bal kaala ila eeg. Markii uu ahaa wiil yar waxa uu jeclaa ka duwanaanshaha dadka. Habeenkii wuu seexan jiray isagoo ku haminaya inuu noqdo shakhsiyad aad u muhiima, maamulaha mid ka mida hoteelada ugu waaweyn. Hamigiisu si uu u muujiyo kor ayaa u qaylin jiray si cidda ag joogtaa u maqlaan, laakiin dhammaantood dheg jalaq uma isiin jirin. Waxa aanay u arkayeen inuu khiyaali ku hadlaayo. Arrimahaasoo dhammi wiilka yar waa ay niyad jebin jireen, waayo waxa ay mar kasta ku odhan jireen, waariyaa wiilka yarow, noqo mid waaqici ah. Ruuxu waa inuu ahaadaa mid waaqici ah, lana jaan qaadaa oo la noolaadaa, oo aanu ku noolaa nolol khiyaali ah. Markii wiilka yari weynaaday, waxa uu go'aansaday inuu majaalka hoteelada barto. Run ahaantiina waa uu bartay kana qalin jebiyey oo waa uu guursaday. Kadibna waxa uu haajiray mid ka mida dowladaha reer galbeedka. Waxaa laga yaabaa inay u suuro gasho inuu xaqiijiyo himiladiisa. Kanada inuu u haajiro ayaa uu doortay. Wuu tegay isagoo yididiile iyo rajo qaba. Sida caadada ahna waxa uu la kulmay carqalado badan. Waxa ugu darnaa dadkii oo niyad jebiyey oo u sheegay inuu yahay caydh bilaa khibrad ah, luuqadda waddankana aan aqoon. Xataa shahaadada uu haystaa aanay ahayn mid laga ictiraafsan yahay Kanada dhexdeeda. Waxaasoo dhan oo keenaya inuu fashilmo. Maxaan sameeyaa? Sidaa ayaa uu naftiisa weydiiyey isaga oo wareersan. Miyaan ku noqdaa waddankaygii oo ay igaga sii horrayso qosol iyo dheeldheel, oo aan ogahay inay igaga sii horreeyaan kuwii awalba ii sheegi jiray inay guul iga dheer tahay? Mise halkan ayaan iska joogaa anigoo arkaya fursadda aan guul ku gaadhi karaa inay yar tahay amase aanay jirinba? Waxa uu noqday mid jahawareersan. Kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay inuu weeldhaqo ka noqdo mid ka mida hoteelada Kanada. Maalin maalmaha ka mida ayuu aabbihiisii dhintay 2 sanno ka hor ugu yimid. Waxa aanu ku dul akhriyey mid ka mida aayadaha qur-aanka. Waxa aanay ahayd, inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. Ilaahayna qoom ma doorsho ama ma bedelo ilaa ay iyagu isbedelaan ama ay isdoorshaan. Waxa aabay uga dhignayd sidii loo furay dariiq ka xidhnaa. Waxa aanay noqotay toosh uu ku iftiinsado madowgii uu ku jiray. Naftiisa ayaa uu ku yidhi, maxaa ay tahay mushkiladdan waaqican xun ama fashilkan soo noqnoqday? Thomas Addison waxa uu fashilmay in ka badan 10,000 oo jeer ka hor inta aanu caalamka u shidin laambadiisa. Walt Disney waxa uu kacay in ka badan 7 jeer, laakiin ma aysan quusan ismana aysan dhiibin. Aniguna waan karaa inaan sidoodaas oo kala noqdo. Arrintaasoo wiilka yaree dhallinyarada ah siisay awood kuna abuurtay rajo. Wuu bartay ilaa uu qaatay shahaadada diblooma ama maaraynta hoteelada. Rajo iyo yididiilo waxa ay noqdeen wehelkiisa. Weji xidhxidhnaantiina waxa uu ku bedelay dhoolla caddayn. Caafimaadkiisina waa uu fiicnaaday. Waxa aanu hore ugu tallaabsaday xaqiijinta hadafkiisa iyo riyadiisa. Waxa uu ka shaqayn jiray maqaaxi yar subax iyo galabba. Waxa aanu isqoray mid ka mida jaamacadaha si uu u qaato shahaadada maamulka hoteelada. Galabtiina waxa uu helay shaqo inuu maamulo hoteelka. Kolba kor ayaa uu sii kacayay. Waxa uu helay shahaadadiisii cilmiga ahayd ilaa uu ka noqday maamulaha guud ee hoteelka. Waxa aanu aasaasay koox shaqaale oo leh xirfad aad u sarraysa. Waxa aanu gartay inuu riyadiisii xaqiijiyey, laakiin naftiisii damac badnayd marnaba halkaa kuma aysan joogsan. Waxa uu helay haddana shaqo ka sii sarraysa. Waxa kale oo helay siminaaro kale oo cilmi ah oo aqoon dirsi uu ku dhigto. Dadaalkiisii sarreeyay awgeed waxa uu noqday ardayga ugu fiican dadka guryaha wax ku barta, waana abaalmarin ay bixiso dowladda Maraykanku. Dabayshu had iyo jeer waxa ay u socotaa jihada aanay doonidu jeclayn. Dadkii hoteelka lahaa ayaa go'aansaday inay hoteelka xidhaan. Xafiiskiisiina waa uu ka tegey. Furihii gaadhigiisina wuu dhiibay. Gurigiisiina waa uu ku noqday isaga oo gaadhi kiraa wata.
dad badan oo saaxiibadiisa ayaa ka kala yaacay. Mar labaad ayaa ay daruur madoobi dushiisa hogatay. Mar labaad ayaa uu aabbihii soo booqday isagoo xasuusinaya xikmad, taasoo markii uu yaraa uu ku celcelin jiray aabbihii: ogow wiilkaygiiow, haddii Ilaahay albaab uu kaa xidho waxa uu furaa albaab kale oo ka khayr badan. Wiilkii yaraa waxa uu dib u baadhay kaydkii hibooyinkiisa iyo khasnadihii oo suuragal uga dhigaya in albaab kale u furmo. Waxa uu xasuustay buuggiisii xasuus qorka oo mar kastoo afkaar fiican ay ku soo dhacdo uu qori jiray. Waxa aanu goostay inuu afkaartan urursan uu kitaab ka dhigo. Waa uu ka dhabeeyey qoridda kitaabkii ilaa uu ka dhammeeyey. Waxa aanu goostay inuu xisaabtiisa ku daabaco. Waxa uu iibiyey 5,000 oo koobi muddo 3 bilood ah. Kadibna waxa uu soo jeestay inuu wax qoro, waxna dhigo, oo uu bixiyo siminaaro oo uu dadka ka caawiyo sidii ahdaaftooda u gaadhi lahaayeen. Imaka oo ay 30 sano ka xigtay wakhtigii uu wiilka yari bilaabay halganka nolosha, waxaad arki in wiilkan yari uu yahay mid guul weyn ka gaadhay nolosha. Waxa uu leeyahay kutubta loogu jecel yahay dunida. Waxaa loo turjumay luuqado badan. Aqoontiisii waa ay korodhay. Asluubta cilmigiisa waxaa lagu dhigtaa sharikaadka caalamka ugu waaweyn. Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sida aan u helay faahfaahinta qisada wiilkan yar, laakiin waxaan idinkaga yaabinayaa markaan idiin sheego inuu wiilkan yar ee himilada dheer leh uu yahay Ibraahim Alfiqi. Qisadan aan idiin qisoodayna waxa ay ka dhignayd cajalad hortayda taallay oo ii muuqatay. Dr. Ibraahim Alfiqi waxa uu ina leeyahay: u fiirso fikirkaaga inta aanad awoodda saarin. U fiirso awood saaridaada fikirka inta aanu isku beddelin dareen. U fiirso dareenkaaga inta aanu isku beddelin habdhaqan. U fiirso habdhaqankaaga inta aanu isku beddelin natiijo. U fiirso natiijadaada inta aanay isku beddelin masiirkaaga. Wassalaamu calaykum.